magaalada Garowe ee Puntland waxaa maanta lagu caleema saaray suldaan kamid ah isimada Puntland iyadoo caleema saarkiisa ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Umar Saciid Diiriye ayaa Garowe inooga soo diray. caleema saarkan ee caleema saariyay isin kamid ah isimada Puntland taas ay yeelanaysa beel kamid ah beelaha Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay isimaha odayaal ururada bulshada rayidka iyo haween. waxaana ugu horeyntii goobta ka hadlay Suldaan Saciid Maxamed Garaas ee kamid ah isimada Puntland ee qaar kale ka tirsan isimada Puntland. inagu dad muslimaynu nahay aqoonta islaam baynu leenahay waxaanu soo dhaweynaynaa oo la caleema saaray oo beesha tani ay waa soo dhaweynaynaa insha Allah waana la shaqeynaynaa si guud suldaanka waxaan ugu soo dhaweynaynaa Puntland isimadeeda waxaan mar labaad ku soo dhaweynaynaa magaalada madaxda Puntland oo suldaanku aan u maleynay inuu degaan u yahay waxaan mar saddexaad ku soo dhaweynaynaa golaha isimada Puntland amniga u adkeeyaan isihimaad ilaah yaqaan culimo diinkiyo caaqiladi fadhido caleema saarkiyo cayaarteena lagu wayaa waxaanu ku aansanay inaanu suldaan beelad uu noo noqon karo in ilaahay xilka aanu saarnay u fududeeyo suldaanku anigu aqoon fiican baan u leeyahay waaridna waa ii yahay waxa weeye waa nin reer nugaaleed ah waa nin beesha madhibaan ah waa nin qoyska reer liibaan ah waa nin reer Garowe ah waa kugu soo dhaweynaynaa suldaan walaha sare dhaqanka Puntland ummadda Soomaaliyeed oo dhan ba beesha madhibaan markii laga yimaado ummadda Soomaaliyeed oo dhan bad mas'uul u tahay Suldaan Mursal Calaad Maxamed oo ah suldaanka bees ay caleema saaratay ayaa wixii sheegay inuu ku faraxsan yahay caleema saarkan suldaanka ayaa wixii sheegay in wax ka qaban doona arrimo badan ee beesha ah isla markaasna hab cadaalad ku dhaqi doona beesha waxaan ahay nin reer Puntland waxaan ku dhashay Togaala Cadheere aabahayna wuxuu ku dhashay meesha la yiraahdo Cadheero awowgayna wuxuu ku dhashay Kalis xilkan aan qaaday maanta waxaan u qaaday shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynaha Puntland iyo beeshii soo dooratay oo aan ka dhashay intaan horteeda waxaan ka cadaynayaa oo idin ballan qaadayaa cadaalad iyo sinaan inaan ku shaqayn doono si waafaqsan kitaabka iyo sunnaha nabiga si waafaqsan baan ula shaqaynaynaa maaha markii ugu horeysay ee mid kamid ah beelaha Puntland ee suldaan caleema saartaan Umar Saciid Diiriye TV-ga caalamiga RTN magaalada Garowe.